tani waa submarine loo yaqaan Nako. Waa gaadiid bad lagu talagalay in lagu qaado maandooriyaasha khatarta ah sida kokaciinka, kaasoo ka imaanaya Koonfurta Ameerika ilaa Mareykanka, xitaa mararka qaar Yurub. 10 sano la soo dhaafay, ciidamada ammaanka waxay qabteen in ka badan 200 oo ka mid ah submarinadan. Hase yeeshee, waxaa jira kuwo badan oo weli shaqeeya. Maanta waxaan dib u eegi doonaa 4 nooc oo kala duwan oo ka mid ah submarinadan. Sidee submarinadan u shaqeeyaan? Sideese uga fogaadaan in la ogaado halka ay ku sugan yihiin? Maxayse ciidamada xeebuhu adeegsadaan si ay u qabtaan submarinadan sida kokaciinta? Waxaa jira siyaabo badan oo lagu dhoofiyo kokaciinta si loogu iibgeeyo suuqyada faa'iidada badan leh ee Mareykanka iyo Yurub. Sanad kasta, ciidamada ammaanka waxay qabtaan 100 tan oo kokaciin ah ka hor inta aysan gaarin waqooyiga. Waxaa jira 100 kale oo ka gudba xuduudka iyadoo aan la qaban. Sida ciyaartan jiirka iyo bisada ah, dadka wax dhoofiya waxay isku dayaan si joogto ah inay u abuuraan siyaabo cusub ay alaabtooda ku gaarsiin karaan macaamiishooda sugan wadamada Mareykanka iyo Yurub. Bilowgii, submarinada Nako waxaa lagu talagalay safarada gaagaaban, laakiin waqti kadib wax soo saarkooda oo batay waxay bilaabeen inay iskugu kala gooshaan qaaradaha. Ini waa Oscar Moreno. Maamulka Colombia waxay u bixiyeen boqorka semi-submersible maadaama uu ahaa madaxa ka dambeeya. Halkan bartamaha keymaha Colombia, webi agtii wuxuu ku leeyahay warshad u soo saarto submarinadan kala duwan. Submarinadan lagu dhoofiyo daroogada waxaa loogu talagalay inay ahaadaan kuwo had iyo jeer ku qarsan biyaha hoostooda, laakiin mararka qaar waxaa dhacda inay usoo baxaan dusha sare ee biyaha. Haddaba waxaa si hoose ula socday dhaqdhaqaaqooda H.I. farsamada u adeegsado Richardo iyo kuwo kale. Qofkan oo ah H.I. wuxuu noloshiisa u horay sidii uu ogaan lahaa sida ay u shaqeeyaan submarinadooda, iyo wuxuu ahaa khabiir ku takhasusay falanqaynta difaaca iyo ammaanka iyo dagaalka badda ee loo yaqaano Navy. Wuxuu yiri waxaa ku sugnaa baaritaanka submarinada daroogada lagu dhoofiyo qiyaastii muddo 15 sano. Waxaan hayaa, wuu yiri, diiwaan ay ku qoran yihiin dhammaan dhacdooyinkii aan kala kulmay intii aan baarayay arrintan, iyo naqshadaha kala duwan ee adeegsadaan submarinadan, iyo falanqayn dheeraad ah sida naqshad ka duwan naqshadii hore. Haddana aan hoos ugu dhaadhacno oo aan ka bilowno submarinka koowaad. Kani waa submarin daroogada lagu tahriibiyo oo sida doontoo kale oo aan gaarsiisnayn heerka submarin. Waxay bilaabatay inay naqshadan soo baxdo bilowgii 2000. dhererkeedu qiyaastii waa 14 mitir. Ma aha submarin dhab ah, balse waa markab loo yaqaan low profile, laakiin muusan ahayn mid awoodi karayay inuu si fiican u quuso oo dushiisa sare waxay ka muuqan jirtay badda, laakiin way adkeed in la arko maadaama uu midabkiisa u ekaa midabka biyaha badda. Nidaamka raadaarada way ku adkeed inay ogaadaan halka ay ku sugan tahay doontani. Hadda waxay ku socotaa sidii ay daroogadan u gaarsiin lahayd bartamaha Ameerika. Gudaha markabkan 5 qof ayaa fadhiyo. Waxay jari kartaa masaafo 16 kilomitir saacadii. Submarinkan wuxuu u qaybsamaa 3 qaybood. Qaybta dhexe waa aaga shaqaalaha. Sariiro yaryar ayay isticmaalaan. Waxay leedahay dalool qaybta sare si ay oksijiin cusubna ay u soo gasho gudaha. Matoorka haga doonta wuxuu yaalaa qaybta dambe ee doonta, halka qaybta hore waxaa si buuxda loogu buuxiyey bacaha kokaciinta oo ah 7.7 tan. Shaqaaluhu waxay isticmaalaan miisaan si ay markabka uga dhigaan mid ka hooseeya biyaha. Haddii submarinku uu gaaro meesha loo socday, shaqaalahan waxay heli doonaan lacag aad u badan maadaama ay ku guuleysteen mishinkooda. Hadda diyaarad ay leeyihiin ciidamada badda oo siday shidaal ayaa aragtay submarinkan sabeynaya dusha sare ee badda. Isla markiina waxay u sheegeen ciidamada ilaaliya xeebaha Mareykanka, kuwa uu ka shaqeynaya meel u dhow halka laga arkay submarinkan. Waxaa loo diray 2 doomo oo yaryar iyo helicopter. Isla markiiba waxay qabteen submarinkan. Waxaa lagu arkay dhexdiisa qiyaastii kokaciin lagu qiyaasay inay ahayd qiimaheeda $200 milyan. Haddii aysan ciidamadu si degdeg ah aysan u dhaqaaqi lahayn, 5 nin ee ku jirta gudaha submarinka waxay furi lahaayeen qaybta dambe ee submarinka, taasoo keenaysa in submarinka ay biyo soo galaan. Wax walba oo ku jira submarinkan ay ku milmaan dunta hoose ee badda. Haddana aan eegno midka labaad. Submarinkan wuxuu ka dheeraa 20 mitir. Kii hore waxaa loo bixiyey magaciisa HC. Gudaha HC waxaa fadhiya 3 nin. Augusto Alberse oo horey u ahaan jiray feeryahan Spanish ah, isla markaana ah
kabtanka markabkan iyo 2 nin oo hadda waxay ku dhow yihiin inay ka gudbaan badweynta Atlantika ayagoo saacadii jaraya 19 kilomitir. Waxay soo jareen masaafo dhan qiyaastii 6,000 oo kilomitir oo ka bilaabanayso keymaha Brazil ilaa Yurub ayagoo aan haysan wax GPS ah, kaliya isticmaalaya compass si ay u hagaan wadadooda. Waxay qaadanaysaa qiyaastii 2 toddobaad si ay u gaaraan halkay u socdaan haddii wax walba u socdaan sidii loo qorsheeyay. Sidoo kale wuxuu leeyahay 3 qaybood: qaybta u yaala matoorka oo ah qaybta dambe, iyo qaybta dhexe oo ah meesha ay ku nool yihiin, iyo qaybta hore ee ah meesha loogu talagalay in daroogada lagu keediyo. Qiyaastii miisaanka submariinka qayb dhan waxaa loo qorsheeyay in lagu keediyo shidaal, oo submariinkan wuxuu leeyahay 3 taangi oo waaweyn oo qaadi kara 20,000 oo litir si looga dhigo markabka mid gaari karo halka loo safrayo oo ahaan jirtay meelo aad u fogfog. Shaqaalaha ku dhex jira submariiniska maysan haysanin sariiro, cunto ahaan waxay haystaan baca yaryar oo ay ku jirto chocolate iyo qascado yaryar oo ay ku jirto digir. Waxay lahayd hal kursi, sidaa darteed mar walba waa in 2 nin ay jiifaan. Maalin waxaa dhacday inay wadadii ay ku socdeen ay ka lumaan, mana awoodaan inay daroogada u gudbiyaan markab kale. 2 goor ay isku dayeen inay la kulmaan submariin kale, laakiin taasina sidoo kale way fashilmay. Saaxiibadiisii hore oo ku noolaa magaalada Vigo isagoo rajeynaya caawinaad. Intaa kadib waxay u safreen xeebta Alicia wayna quusiyeen submariinkii. Kadibna waxay isku dayeen inay baxsadaan, laakiin ciidamada ammaanka ayaa ka warhalay halka ay joogaan. Xarunta falaqeynta iyo hawlgallada badda ee loo soo gaabiyo EU waxay Spain u sheegtay in markab laga shakisan yahay oo ku soo socdo xeebtooda. Waxay adeegsadeen qalab loo yaqaano night vision. Saraakiishu waxay qabteen 2 nin oo kasoo jeedo Ecuador. Waxyar kadib markii uu markabka quusay, Alvarez wuu baxsaday. Wuxuu isku qariyay guri u dhow meesha uu markabka ku quusay. 5 maalmood kadib asigana gacanta ayaa soo dhigay. Muddo kadib booliska Spain waxay dib u soo saareen markabkii ay quusiyeen. Qoladan waxay heleen 3 tan oo kokain ah oo qiimaheedu gaarayo 100 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Markastoo mid ka mid ah submariinadan la qabto, Cattell oo ahaa madaxa wuxuu saari jiray lacag badan, taasoo sabab u noqotay inay hal abuur sameeyaan oo ka duwan kii hore. Haddana aan eegno midda saddexaad. Marka hore tani waxay u muuqataa submariin dhab ah. Waxay leedahay qaab dhismeedka submariin. Dhererkeedu waa qiyaastii 24 mitir oo si buuxda ugu quusi kara biyaha. Kaliya qoorta dheer ayaa ka muuqanaysa dusha sare, taasoo u suurtagelinayso in markabka uu ka neefsado, taasoo markii dambe siisay doontani magaca ah Nokrsa. Laakiin muusan ahayn mid la mid ah submariinada kale. Waxay ka sameeyeen dhalo aad u adag oo markabkan wuxuu lahaa matoor siinaya koronto qeybaha kala duwan ee markabka, sida kaamirada ku taalo dusha sare ee qoorta dheer, taasoo ogolaanaysa inay ogaadaan waxa ka dhacaya hareerahooda ayagoo ku jiro gunta hoose ee badda. Maadaama uu submariinka mid si fiican loo naqshadeeyay, wuxuu qaadi karayay ilaa 7,000 oo tan oo kokain ah. Tan iyo hadda midkoodna laba qaban. Submariinadan waxay ahaayeen kuwa guuleysta howl walba ay u dhaqaaqaan, laakiin waxaa la ogaaday inay horumarin ku sameyn jireen maraakiibta noocaani ah, oo waxaa la helay dhowr xabo oo sidan ah oo aan howlgal ku jirin, oo ah kuwa laga tegay oo la nacay oo yaalo dusha sare ee badda. Sanadkii 2022 xukunkii Oscar Moreno oo loo yaqaan boorkii submariinada dhoofin jiray daroogada, kadib sanado badan oo ka baxsan ciidamada ammaanka, ugu dambeyn waa la soo xiray howlgal wadajir ah oo ay fuliyeen ciidamada Colombia iyo kuwa Mareykanka. Qabashadiisii waxay calaamad u noqotay guul weyn oo ay gaareen ciidamada ammaanka.